dhaqan baan leenahay waan isku urunaa waan isku tiirsanaa waxaasoo horta waxaan maqlayaa on the iscaaj sodohda yaanay guriga ku noolaan ma yasa taaba lagama hadlay horta waxay anigu san guriga ku fahansanahay isagu suu guriga ku fahansan yahay ma garatay anu gurigan ka yimaaday isna guriga buu ka yimaaday anu dhaqan baleeyay isna dhaqan buu leeyahay laakiin wax kasta kala saaraysa iyo tasaa'ulaadkan iyo fikirkan iyo hamiga warwarkan waa diinta kala saaraysa leeno hadafkaygu waxa weeyaan qoys fiican oo muslima inaan abuurno Soomaha dhaqankii caadadii baa waxay u bateen inantu inay marka hore feerasti iyadoo ninka hooyadii aragba ay nacayb qalbiga gashato ayna marnaba islaanta wanaag ka dhaxeeya aanayba jirin dabadeetana way dhacday iyadoo qalbiga ku haysata nacayb inanka hooyadiisa oo iska caado ah ayaabay dhacday in gurigii la galo oo inankii guursado dabeetana islaantii way timid dabeedna nacaybkii iskaga qufulaa inanta markeeda horeba ayaa de marka kelmad la yiraahdoba ay oranaysaa naayigada anigu waxa qaban maayo igada marka horeba habluhu way neceb yihiin inay sodoodu guriga ku noolaato markay dadku isku bataan waliba sodohda markay timaado cuntada comment ka sameynayso milix waa bilaadadan inankayga wuu caatoobay waxa meesha uqdad baa imaanaysa waa la is aamin dhibaato badan hooyada inanka dhashun baa diidan tahay mise ilaa hooyada baa diidan tahay hooyadiina haska joogto gurigeeda because waxan waa wax cusub waxaan rabnaa inaan challenge kan waa marriage weeyaan waa wax aad u culays badan mid kale adigoo xaajigii oo soo shaqeeyay maanta dhan waxa gurigii baad imaanaysaa anigoo afkii taagi waayo because hooyada ayaan isdinay ama wax naga dhacmaray maalintii during the day marka anigu waxaan oranayaa wali hooyada ma ka shaqaysateen ama ma kaaga shaqaysay markii iyada la guursaday sidii ahayd iyo sidii guriga loo noolaan jiray waxay tiri sodohyaasha gurigooda ha joogaan horta sodohdu way dhib badan tahay run baa fiican guriga markay ku soo biirto buuq baa ku soo biira waxyaabo aan banbanaaneen bay wiilka u sheegtaa laakiin soo maaha odagaaga hooyadii soo maaha sideenad u ixtiraamayeen in guriga kula noqdo waan ixtiraamayaa laakiin sodohdayda gurigeeda joogto maxay guriga ka soo doonaysa kana ana laygu qabaa haddeen halkan afafaala iga baxay waxa la yidhi gabadhu guriga iyadaano lagula noolaan karo waxay ila tahay wax dhegtayda ka weyn waxa la yidhi ishaaduna waa kulada dhegtaaduna waa ka weyn aniga arrin mushkulada ayay ila tahay kina Soomaalidu waxaan dad isku tiirsan oo noloshoodu aanay kala maarmin oo noloshu dad qofka wax ay inta kale uu soo gacan qabto ayay ahayd laakiin waxa madaanimkiisa bulshadu sii rabadashay waxyaabo kale inta soo raadx kale aqoontii aynu baranay waa aragnimadii ay keentay inaynu la jaan qaadno dhaqan aynaan lahayn oo kontaga reer galbeed dad kale aynaan lahayn qaabkan loo nool yahay qofku leeyahay kaliya aan noolaado ehel kaliya dad kale yaanay imanin caruurtan intan dambe jiilka lama barbaarin waxay tahay sodohdu waxay tahay oo waxay ka siyaaminsan wax qiila qaal oo la yiraahdo sodohdu markasta waa qofkaas soo horjeeda sodohdu qayb ma ka tahay marka burburka qoyska maya boqolkiiba 80 kama aha way dhici kartaa in sodohayada qaar ay si yar fikir kale u aaminsanaadaan oo waa dadka aan aqoonta lahayn baan oran karaa dalahaan anigu waxaan qabaa in mas'uuliyadda guriga ay inantu leedahay wixii xidhiidh iyo waalidnimo waa halkeeda waad ogoshahay hooyada ku dhashay inaad ogolaansho ka qaadato bari marka inaan guurso waan la qabaa iyadoo weydiinaya oo ogolaansho weydiisanaya sodohdii hore iyo sodohda imka inaan isku mid bahay maxaa farqiga u dhaxeeya waxa uu kala dhaxeeya sodohii hore gabadha way guubaabin jireen inankana way guubaabin jireen waa labadaba de waalid baa loo yahay laakiin imika dambiga oo badan wuxuu ka bilaabmayaa sodoha isfahan waa ka dhaca inantan generationkii dambe ah iyo maamadan inankaagii wanaajiyo gurigiisii reerkiisii ka fikir ah un mooye horta waxay xumaynayaan anuu 20% baan oran karaya abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda
haddaba sidee ayuu u shaqaynaya applicationka Daha Plus Google App Store-ka ama Play Store-ka moobilkaaga kadibna raadi Daha Plus marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga idahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Daha Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahabshiil in ka badan $126 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Daha Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Daha Plus waxaad adeega Dahab Bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee idahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Daha Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Daha Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Daha Plus